In adeerkay muddo 20 sano ah ayuu lahaa reer wax awlaad ah ma dhalin, balse markuu bilaabay istighfaarta Ilaahay waxa uu ku arsaaqay 2 awlaad oo mataana ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada walaalaha qaaliga ay ku xiran channelkeena iyo dhammaan walaalaha cusub ee soo booqan doona. Jazakumullahu khayr ayaan idin leeyahay. Waqtiga iyo time-ka aad nagaliseen Allah idin barakeeyo. Sidee tihiin xaaladiina caafimaadkiina? Insha Allah waxaan rajaynayaa dhammaan inaad wacan tihiin. Alxamdulillaah, Ilaahayna siiyay fursad kale iyo jaanis kale iyo mar kale iyo maalin kale iyo saacado kaleento oo aan asaga u cibaadeysanayno. Jira maanta naga hooseeyo saacado ka hor, daqiiqado ka hor, maalmo ka hor ay go'day naftooda oo aan haysanin jaanis kale ay ku cibaadeystaan. Marka waqtigeena aan ka faa'iideysano walaalaha qaaliga wada saliya nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Dhammaanteen muraadkeena muraadka muslimiinta Allah sahlo, qof kastana meesha ku oomaya Allah ka oontiro, faraj khayr qaba ayaan Ilaahay weydiisanaynaa. Inta xanuunsan Allah caafiyo, inta awlaad la'aan awlaad baar Allah siiyo, inta guur la'aan guur xalaal Allah siiyo, inta laga xanuunsan yahay Allah caafiyo, inta xabsiyada ku jirto iyo inta xabsiyada looga jiran Allah soo deeyo soo furdaamiyo, inta deemaysan deynta Allah ka gudo, inta shaqo la'aanna shaqo khayr qabta Allah siiyo, inta guur la'aan guur xalaal Allah siiyo. Dhammaan muraadkeena oo macsi lahayn Ilaahay hana siiyo. Arlada ayaan ka duceynay samada Allah ka aqbalo. Allahumma amiin. Soo dhawaada walaalahayga aan jeclahay, waa qisaskeenii laga arkay istighfaarta. Haddaba aan ku furfurana aayadahan oo ka hadlaya istighfaarta. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات دباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ما isweydiisay waxaan ugu soo qaato aayadahan فيديو كستا iyo clip kasta oo istighfaar ah. Waa aayado gun iyo dhiib iyo qoto dheer oo ka hadlayo istighfaarta iyo nimcooyinka laga helo. Haddaba haddaan niraahno istighfaarta iyo nimcooyinka laga helo ayaan soo koobaynaa, ma aha kuwa soo koobayo, balse aan u guda galno dadkan sameeyay oo ku dhaqmay oo hirgeliyay inay istighfaarta noloshooda ku bedelay noloshooda kadib markii ay si dhab oo yaqiin ah u aamineen istighfaarta in guulo lagu gaaro, guulo waaweyn ku gaaray kadib markii ay dhaqan geliyeen oo istighfaarsadeen kuna guuleysteen. Haddaba qisadeena ugu horeysa waxa ay leedahay in adeerkay waxa uu reer lahay muddo 20 sano ah asaga oo aanan dhalin wax awlaad ah. Kadib markii uu bilaabay istighfaarta Ilaahay waxa uu ku arsaaqay 2 awlaad ah. Kalaamkaasna Ilaahay ayaa iiga markhaati ah ayuu leeyahay qofkaasi. Qisadan kale waxa ka sheekeynayso gabar waxa ay leedahay waxaan isdaaweynayay sanado fara badan. Reerkayga waxa uu dhisnay muddo, dadkuna waxay igu ceebeynayeen inaan ahay qof aanan dhalaynin. Waxaan aadaba isbitaal dal iyo dibad dawo aan qaato oo aan dadaalay balse kuma guuleysanin ayay leedahay. Kadib waxaan bilaabay istighfaarta suuratul baqara maalin walba ayaan akhrin jiray iyadoo dhameystiran. Waxaan habeenkii istaagi jiray salaatul leyl, Allah ayaan baryi jiray salaatul leylka. Markaan tukado salaatul leylka ayaan Allah baryi jiray. Muddo markii aan waday 2 bilood ah kadib waxa aan yeeshay uur. Ilaahay ayaa mahad iska leh subxaana razaaq. Ilaahay ayaana irsaaqada bixiyo nooc kasta ay noqotaba.
ilaahay ayaa kheyr oo dhan yacni agtiisa kaamil ay ku yihiin. Ilaahay ayaa irsaaqada bixiyo. Owlaadana waxay ka mid tahay irsaaqada oo ilaahay noo qadaray qayb ka mida waaye. Ilaahay ayaa mahad iskale ayay leedahay. Nimcadii aan ku tamanin jiray muddo badan inaan helo, ilaahay waxa uu igu siiyey si fudud oo muddo 2 bil gudaheeda ah ayaan ku helay alxamdulillaah. Muddo 2 isbuuc ah oo aan joogteeyay akhrinta istighfaarta, xawqalada, salliga nabiga iyo in aan isquraamiyo adkaaru sabaax iyo masaa na akhrisan jiray. Waxaan kaloo akhrisan jiray suuratul baqara, waxaan kaloo akhrisan jiray suuratu yaasiin anigoo ku celcelinayo iyo suuratul faatixa. Maalintii oo dhan intaas ayaan ku celcelin jiray. Waxaan ahay shaqaalo. Waxaanan markii aan bilaabay akhrinta suuradahaas iyo adkaarta iyo salliga nabiga iyo istighfaarta, xawqalada, baqara iyo yaasiin iyo faatixo markii aan bilaabay waxaa u bilaabatay ayay dhahday shaqadeydii ayaa mashaakil iga imaaday waana layga soo buriyay oo waana soo siiyay warqadeydii fasaxahay. Isbuuc kadib waxa ay la soo xiriiray shirkad weyn waxayna ii qabteen balan yacni interview igula yeeshaan. Maalinka interview ila yeesheen maalintii ku xigtayna waxaa leedahay shaqadaada ka soo yacni shaqadaada imaaw. Waliba aniga oo shaqaale caadi ahaan jiray markii shaqadeedii liiga soo burinayay ayaa waxaa madax liiga dhigay ayuu leeyahay wiilkani shirkadda ayaa maamulaheeda la iga dhigay. Subxaanallah, siduu ilaahay ii ikraamay ayaan la yaabay ayuu dhahay. 2 maalin gudaheeda ayaa shaqadiina la soo codsaday, isla madaxna layga dhigay, layna shaqaaleysiiyay, madaxna layga dhigay ayuu leeyahay. Waxaa jirto yacni aayad quraan oo dhahayso casaa an tuxibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Waxaa jirto wax aad jeceshihiin oo shar idin ahaay. Maalintii shaqada la iga burinayay ma jeclaysanin, balse ilaahay waxa uu ii diyaarinayay muqaabilkeeda ama bedelkeeda. Shaqadan waliba ka sareysa shaqadii hore iyo xibintan lii magacaabay oo ka sareyso xibintii hore. Waxaan ahay awal shaqaale waxaanan isku bedelay maamulo xafiis. Alxamdulillaah, ilaahay yaa mahad iska leh. Nimcadaas iyo fadligaas iyo barwaaqadaasna waxa aan ku gaaray ayuu dhahay in aan xuska ilaahay joogteeyay. waxa uu sameeyay istighfaar iyo xawqalo salliga nabiga inuu istaxsiiniyay oo yacni adkaaru sabaax wal masaan akhristay, quraankii uu akhristay, baqaro, yaasiin, faatixa iyo yaasiin uu ku celcelinayay. Maalintiisii oo dhan waqtigaas ayuu sidaas ayuu ku dhameyn jiray. Marka ma dareemi kartaa qofka maanta dhan xawqalo iyo salliga nabiga, istighfaarta, suuratul baqara akhrinteeda, faatixa akhrinteeda, yaasiin waqtiga uu ku bixiyay waqtigiisa haaf ka mid ah wuxuu ku bixin jiray khayrka. Qisadanna waxa ay ka faaloonaysaa ama ay ka hadlaysaa faa'iidada laga helay istighfaarta iyo suuratul baqara. Haweenadeena waxay leedahay waxaa laygu lahay deyntii guriga. Aad ayaanan uga walwalayay. Xilligii salaada subax markaan tukaday kadib salligayga ayaan waxaan bilaabay anoo fadhiyo inaan akhristo suuratul baqara. Kadib waxaan ku xijiyay ayay dhahday istighfaarta waliba aad ayaan u daldalayo oo aan u akhrinayo. Markii ay qorraxda soo baxday waxaan tukaday ayay dhahday salaatu duxa. Qalbigeygana aad ayaan ugu walwalayay ay dhahday. Deyntaas laygu lahay ee guriga deynta la iga lahaa. Subxaanallah, ilaah ayaa xumaan ka nasahan. Waxaaba albaabka ii soo garaacay ayay dhahday oo ii dhiibay baqshad qolyaha ka shaqeeyo tabarucaada ama ficil khayrka sameeyo. Baqshadaasna waxaa ku jirtay 900 oo riyaal. Waxayna iga gudaysay ayay dhahday deyntaasi oo ahayd kirada guriga oo liiga rabay. Subxaana rabbi ma akrama. Ilaahay nasahnaaye maxaa ka karaamo badan oo maxaa ka naxariis badan.
waa faraj feyde kurbo walba farajkeeda nasiiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala. Gabadhaasi waxay ka sheekeynaysaa markii ay tukatay salaada subax kadib inay u fadhiisatay inay akhriso suuratul baqara oo istighfaarsato. Salaatu duxay tukatay aad iyo walwalaysay kirada guriga ka walwalaysay, balse albaabkeeda intii loo soo garaacay ayaa waxaa loo dhiibay lacag baqshad ku jirto oo ah 900 riyaal kana gudaysa gurigeeda iyo deyntii lagu lahaay. Ilaahay ayaa xumaan oo dhan ka nasahan, ilaahay ayaa latiif iyo u sugnaatay naxariis, ilaahay ayaa kurba feyde ilaahay isku xiro taladiisa saartana ma khasaaraya adduun iyo aakhiraba. Qisadan kale waxaa ka sheekeynayso gabadhan waana istighfaarta iyo salliga nabiga. Waxay leedahay aniga xaajigeyga ama ninkeyga waxaan ahayn dad isjecel midba midka kaleento. Alxamdulillaah, reer walbo mashaakil wuu dhexmaraa oo waxaa jiro sooma aha in la yiraahdo carab iyo ilkaab isugu dhaweey way isqoomaan. Marka labada qof ee isla nool waa un isgaaraan. Waxay dhahday mashaakilaad 5 sano aan isla nooleen waxay dhahday way jiri jireen, laakiin 2 maalin kadib way iska xalismi jirtay. Laakiin waxaana soo martay mushkilad aniga asaga aan ku kala xanaaqnay isla mana hadlaynin isbuucyo. Waana markii ugu horeysay ee dhahday oo muddada intaas la eg oo sidaas dhan u dheer aan kala aamusnaano. Aniga aad ayaan ugu daalay ee dhahday inuu iga aamusnaado sababtoo ah waxay ahaayeen dad isjecel. Waxaan bilaabay ee dhahday oo laazimay inaan salliga nabiga afka ku qabto iyo istighfaar. Waxaan u niyeysanaa ee dhahday inuu ilaahay ii soo hanuuniyo oo ii soo celiyo oon iraali geliyo inta uusan ii soo noqonin. Waxay dhahday intuu ii soo noqonin 2 bari ka hor waxaan aad u laazimay ee dhahday istighfaarta. Waxaana ay dhahday markii aan ilaahay aan u baryayay in ilaahay qalbigiisa ii soo celiyo oon ilaahay iga farxiyo. Subxaanallah, waxay dhahday ninkii wuu imaaday wuuna iraali geliyay. Ilaahay aana mahadoo dhan u sugnaatay. Markaan istighfaarta iyo ducada iyo salliga nabiga aan joogteeyay waxay dhahday aad ayaan iiga farxiyeen istighfaarta iyo salliga nabiga iyo ducada aan duceeyay. Qalbadeeda aad ayay uga farxiyeen oo waxaa ii soo noqday zawjkeygii anigii asaga carada aan ku kala maqnayn, asagana jeclaa anigana aan jeclaa. Ilaahay maxaa ka karaamo badan. Waxaan idin leeyahay ee dhahday laazima istighfaarta. Walaalaha qaaliga ee sharafta iyo karaamada u saaxiibka fiidiyogeena intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa maanta hadduu ilaahay yiraahdo. aad iyo aad ayaa mahadsantihiin waqtiga aadna geliseen. Jazakumullahu khayr. Haddii la dhaho qisaska laga arka xuska ilaahay ayaa meel lagu soo koobayaa fiidiyo iyo laba ma aha wax la soo koobi karo. Marka insha Allah naftiina waxaa idin dardaarmayaa alla ka cabsiga iyo taqwada ilaahay. Ilaahay waxaan ka baryaynaa xaq inuu nagu sugo. Allahumma yaa muqallibal quluub ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. waxaan joognaa duni aakhiru zamaana. fitantu iska badan tahay, musiibooyinka iska badan yihiin. Ilaahay aan hareer mariyo sharta iyo musiibooyinka wareegaysa. Ilaahay ayaan ka magan galnay mowtul faja. Ilaahay ayaan ka magan galnay sayi'ul asqaam iyo cudurrada kuwooda xunxun. Ilaahay ayaan ka magan galnay musiibooyinka wareegayo. walaalaha qaaliga ah dhammaan muraadkeena allaha sahlo iyo muraadka muslimiinta. muraadkeena macsilaheena meel dhow allaha naga siiyo. kurbada allaha naga dulqaado. faraj khayr qaba allaha na siiyo. sidee quluubteena jecesha ee si ka wanaagsan allaha noo yeelo. aad iyo aadna waa u mahadsantihiin. insha Allah waqtiga aana geliseen jazakumullahu khayran ayaa idin leeyahay. allaha idinka abaalmariyo. insha Allah aan badino xuska iyo dikriga iyo akhrinta quraanka. insha Allah salliga nabiga xawqalada
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. دعوينك marka naftaada ha ka bakhiilin ducada insha Allah iyo walaalkaa qurbeysan oo kale inaad u duceyso sababtoo ah Allah subxaanahu wa tacaala asagaaba kula soo maaha udcuuni astajib lakum barya waan idin ajiibayaa ballanqaadka weyn maa jiro kaliya ilaahay gacmaha kor ugu taago bari ilaahna wuu ka ajiibayaa umuurahaagana wuu kuu sahlayaa biidni raxmaan ilaahay waxaan ka baryaynaa gafkeena iyo geerideena inuusan kulminin khaatimadeena inuu ilaahay khayr ka dhigo inuu ilaahayna siiyo toobatan nasuuxatan qabla almowt ayaan ilaahay weydiisanaynaa walaalaha qaaliga oo sharafta lahow aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin insha Allah fiidiyowga halka haddaa soo gaartay Allah ka abaal iyo jasa siiyo way iska yaryihiin dad khayr jecel oo ka faa'iideysanaya in la helo marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu xaqa iyo khayrka nagu sugo waxaan kaleento oon yacni idiin sheegaa fiidiyowga si uu meel dheer noogu gaaro inaad like saartaan una sii share gareysaan walaalaha kale qof kasta oo aa u share gareyso ajarkiisoo kaleenta ayaa leedahay asagoon tiisana laga nusqaamineynin insha Allah gambaleelkana ku xiro sidaas ayaan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu tawfiiqdana waafajiyo mar walbeento jasaakumullahu khayran ayaa adinkan idin leeyahay intaan fiidiyoo kan xiga aan ku kulmeyno في أمان الله وحي أركتدين يرأيين إن شاء الله iyo qisas haday jiraan laga arkay istighfaarta xawqalada adiga xuska ilaahay oo dhan iyo digriga iyo quraanka haday jirto wax qise ama saameyn kugu yeelatay insha Allah noogu soo reeb barta commentiga waxaana sameyn doonaa number yacni qisooyinka ula soo wadaagi doontiin insha Allah qorshahaas ayaan jeclaan lahaa inaan sameeyo si u aragtiin in number haday jiraan dad qisooyin noo hayo ay ku soo diri karaan inaa idiin sameeyo oo idiin soo dhigo sidee u aragtaan marka insha Allah way jiraan hada walaalo barta commentiga qisooyin yacni ku soo qoray insha Allah u dhugta u fiirsada insha Allah xuska ilaahay iyo khayrka iyo quraanka aan macaansano oo aan ku tadabburno waan dareemeynaa markii aan si yaqiin u akhrino macaanka ay leedahay xuska ilaahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.